beesha caalamka ayaa xilligani waxa ay galaangal xoogan ay ku leedahay siyaasadda Soomaaliya waxana muuqanaysa in mar walba ay meel ay ka soo jeestaan dadka qaar ayaa ku sheegaya in waxa ka socda Soomaaliya ay tahay qandaraas ay wataan hay'adaha caalamiga ah ee mar walba sheega in ay daneynayaan degnaanshaha Soomaaliya balanqaadyo lacageed oo ku eeg saxiix warqadeedkii New Deal oo kale wax qabad aan muuqan ayaa saldhig u ah taageerida beesha caalamka ee Soomaaliya markani waxaa soo ifabaxaya in beesha caalamku oo ka kooban jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa midowga Yuruba urur goboleedka igaada safiirada qaar ka mid ah dalalka caalamka sida Ethiopia inay jabiyeen qodobo ka mid ah dastuurka dalka Soomaaliya iyaguna marba meel ka soo jeestay halkani waa xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya waxa ayna qalinka ay ku doogayaan saxiixa maamul goboleed loo sameeyo gobolada Mudug iyo Galgaduud markani waa Garowe waxa ay saxiixayaan in maamul loo dhisayo qayb ka mid ah Mudug iyo Galgaduud waa siyaasad laba aflaa oo iska horkeynaysa ummadda walaalaha ah ee Soomaaliyada Daahir Amiin Jeeso waa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha federaalka iyo xuduudaha ee baarlamaanka Soomaaliya siyaasadda beesha caalamka ee aad i weydiisay beesha caalamka runtii siyaasadeeda waxaan dhihi karaa ummadda Soomaaliyeed waa mid khatar gelin karta oo aan laga fiirsanayn waxaan u leeyahay taa siyaasadda mar haddii iska hor timaado oo ay noqoto mid isburinayso marka dab waxay noqonaysaa disaster oo kale ay noqonaysaa qarax oo kale ay noqonaysaa hadda Soomaaliya waxaad moodaa siyaasadda beesha caalamka in ay u keeni karto qarax siyaasadeed oo ummadda Soomaaliyeed dagaalo sokeeye ka abuurayso beesha caalamka ayaa waxa ay ku lug lahayd heshiiskii lagu dhisay maamulka kumeel gaarka ee Jubba kuwa hadda socda ee Baay iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose iyo midka labada waji leh ee Mudug iyo waliba Galgaduud Soomaaliya xaq baa ka saaran dastuurka inuu barto oo aqriyo adigada ka wariyaha ay xaq ka saaran waxaan ku sheegaa waxa weeyaan heshiiska meesha lagu saxiixiyaan ba xalaal ahayn kii madaxtooyada kan gaalkacay hadda lagu saxiixiyaan oo garow hadda aan lagu saxiixiyo Mudug lagu kala qaybinayo xalaal ahayn kan Jubba lagu dhisaayo xalaal ahayn kan 6 gobol lagu dhisaayaan xalaal ahayn kan 3 gobol lagu dhisaayaan xalaal ahayn way dastuurkii ana xildhibaan anahay waxaan jeclahay inaan raaco jidka dastuurka uu ifaray barnaamijkii higsiga cusub ee New Deal oo Soomaaliya loogu deeqay lacag dhan 2 milyan wax ka soo gaaray dalka ma jiraan oo shirkaasi waxa uu ahaa mid dharagdhacsi ah madaxda sare ee dalka ayaa cadeeyay in waxba aan ka soo gaarin lacagihii loo balan qaaday sanad kadib bishii September sanadkii hore waxa Soomaaliya loo yaboohay 2.4 bilyan oo euro waxaa ka horeysay shirkaas sidaa ka horeeyay London oo 300 milyan iyo jarjar asna lagu ballan qaaday Brussels markay dhamaatay kadib ballan qaadidii wax balaa ka sii dabiilan lacagtu waa 3 bilyan oo dollar waa tiradeed laakiin waxay tahay 3 bilyan oo dollar maxaan ka haynaa maanta sanadka bacdi yabooheedii maanta maxaan ka haynaa maanta wax la taaban karo oo rasmi oon ka hayno oo dawladda federaalka soo gaara ma jiraan 2 bilyan ayaa Soomaaliya si hormarinayaa kelmadaha markii la maqlay weytuunku markuu bilowday oo labada bilyan hadal baa lagu cunaa والله ما أعرف mar walba ay ummadda Soomaaliyeed ay kala fogaato khilaafkana uu bato waxa ka faa'iideysta beesha caalamka dhilinta Soomaaliyeed ayaa maasooyin ku cabiray xaaladda Soomaaliya ka taagan ismaandhaaf sii socdiyo muran xoogaystayo ismaandhaaf sii socdiyo anu muran baan arkaa 9 madaxweyne oo soo magacaabayo cidna magacaabino midoo magac sheegtayo ana meeshan iska leh macaashtoon baan arkaa murtida hadan sii wado macnaha sii kala dhigdhigo inaynu midowno dalkeena midayno ilaahay maciinsano maslaxa aan raadino muranka aan joojino maadeeqan maalo caruurta yaryarka ah iyo waliba qof walba oo Soomaali ah ha joogo miyiga dalka iyo magaalooyinka ama qurbaha ayaa la dhaca marka ay dhagohoodii ay maqlaan magaca beesha caalamka Soomaalida inay u tashtaan dalkooda waa arin laga maarmaan ah سلمان جمال سعيد TV عالمي Universal
magaalada muqdisho.